wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaacisay xogta caabuqa COVID-19 iyo waxyaabihii ka soo kordhay caabuqa coronavirus ee guud ahaanba Jubbaland waxaana warbixinta ka warbixiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ahna gudoomiyaha guud ee u xilsaaran ka hortagga caabuqa COVID-19 bismillaahir rahmaanir rahiim waa markale iyo xog wadaagii ama warbixintii maalinlaha ahayd ku saabsanayd caabuqa COVID-19 ama coronavirus iyo dowlad goboleedka Jubbaland waxaa tirada ku soo korodhay 3 qof oo hor leh tirada inta la xaqiijiyay ee laga helay sida la ajligeed waxa ay maraysaa 62 qof oo dowlad goboleedka Jubbaland ku sugan tirada dhimashadu ilaahay ha u naxariisto waxa ay maanta maraysaa 5 qof oo 3 lab ah ama rag ah iyo 2 dhedig ah ama dumar ah oo naga geeriyooday 5-6 beriyo la soo dhaafay tirada ka bogsashada waxa ay maraysaa 3 oo markii ugu horeysay aan xaqiijinay maanta in 3 qof oo cudurka uu ku dhacay oo dadkii ugu horeeyay oo laga helay ah markii dib aan u baaray ay noqdeen negative ama laga waayay viruska jirkooda mar labaad waxa taas macnaheedu yahay in dadkii cudurka ka kacay in badan oo kamida aan rajaynayno maalmaha soo socda inaan iyaguna idin la wadaagno xogtooda oo qaarkood sidaas oo kale dad ka bogsaday ama ka kacay oo jirkooda aanu mar dambe ku jirin cudurka viruska keena inay noqdaan dardaaran bulshada waxaan kula dardaarmayaa ama aan ku wargelinayaa in ay dhageystaan talooyinka caafimaad in ay sida dhabta ah yeelaan warbixinada kala duwan iyo talooyinka ay siinayaan bahda caafimaadka dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo inta kale ee wacyigelinta caafimaadka nagala shaqeynaysa talooyinkaas oo ugu horeyso marka hore in aad ka taxadarto meelaha la isugu yimaado social distancing ama kala fogaanshaha dadka qayb weyn ayuu ka mid yahay yareynta ama naaqusinta fiditaanka cudurkan marka xiga in hadii aad ku qasban tahay inaad meel dad joogaan aad dhex tagto oo dan ka leedahay inaad xirato mask ama af xireen marka saddexaad hadii calaamadaha cudurka aad isku aragto ama qof kula nool aad ku aragto ama qof ku dhow aad ku aragto inaad la socodsiiso wasaaradda caafimaadka xarumaheeda kala duwan adigoo la soo xiriiraya ama soo wacaya lambarka ah 466 oo 24 saac aan ka jawaabayno waa mahadsantiin شرماركي مهدي عبدي جبلان TV كسمايو